Assalaamu calaykum. Sababta dad badan uga aaminsan yihiin guusha fikrad qaldan ayaa waxay tahay iyagoo arkaya natiijada ugu dambeysa ee qof shaqo adag soo qabtay isla markaana dhahaya waa nasiib. Weligaa ma maqashay sheekada nin la yiraahdo Morgan Freeman? Haddaba haddii tahay markii ugu horreyso aad soo booqanayso YouTube channelkeena, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saartid si aad ula socotid muuqaalada dambe oo aan soo gelin doono barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Gohar Bro. Haddaba haddii aad daawato filimada Mareykanka, waxaa laga yaabaa inaad ogtahay inuu ka mid yahay aktarada loogu tixgelinta badan yahay ee ku guuleystay marar badan bilada filimada ee loo yaqaano Oscar Prize. Taasi waa waxay dhab ahaan ka yaqaanaan dadku aktarkan, balse wax fikrad ah ma ka haysaa halgankii uu soo maray ka hor intuusan noqon aktar caan ah oo guulo soo hooyiyey. Haddaba daawade, maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay sheekadii Morgan Freeman. Morgan Freeman wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka taariikhdu markay ahayd 1937, waqtigaasi oo ku beegnaa waqtigii midabta korka lagu hayay dadka madmadoobi oo aad u xoogganaa. Iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatadan iyo cadaadiskan midabta korka, qoyskiisu waxay go'aan ku gaareen inay u guuraan meel kale si ay u helaan nolol ka fiican ta waqtiga ka jirtay waddankooda. Morgan wuxuu jeclaa inuu noqdo aktar, lacagtiisa iyo waqtigiisa inta ugu badan wuxuu ku bixin jiray si uu u daawado aflaamta. Marar badan wuxuu isku dayay inuu noqdo aktar, balse maysan u suurtagelin. Waqti aad u dheer kadibna, Morgan wuxuu is arkay isaga oo duuliye ka ah diyaaradaha militariga. Waqti kadib, Morgan wuxuu xaqiiqsaday in mihnada dhab ahaan uu jecel yahay ay tahay aktarnimada, wuxuuna go'aansaday inuu daba socdo oo uuna ka hadhin ilaa uu aktar ka noqdo. Morgan da'diisu waxay gaadhay 45 sano jir, isagoo wax guul waaweyn ah aanan soo hooyin, laakiin muusan niyad jabin oo wuxuu sii waday isku daygii. Wuxuu ku guuleystay markay da'diisu gaadhay 50 sano jir ilaa uu kama dambaystii matalay filimada caanka ah. Markay da'diisu noqotay 67 sano jir, Morgan Freeman wuxuu ku guuleystay bilada aflaamta kadib jilidiisii loo wada bogay ee filimkii lagu magacaabay $1 Million Baby. Morgan Freeman ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin zaid u adkaysi badan, maadaama uu guushiisa ugu horeysay gaaray asaga oo 50 sano jir ah. Taasi oo u dhiganta in 50 sano uu ku soo jiray adkaysi, dadaal iyo samir, balse ugu dambeyn guushiisa wuu gaaray isaga oo waayeel ah.